fadlan walaalkay Soomaaliyeed subscribe taawo gambaleelka furo soo muuqaalka xiga kugu soo dhaca haddii aad xiiseynayso arrimaha jacaylka. Sidee u noqon kartaa qof la jecel yahay? Haddaba waxaan idin sheegi doonaa 6 siyaabo aad ku noqon kartid qof la jecel yahay. Dhoola caddeyntu waxay soo jiidataa qof kasta oo wanaagsan. Waa habka ugu sahlan aad dadka ku soo jiidan kartid. Qofka dhoola caddeynta badanaa waxaa la sheegaa inuu yahay qof qalbi wanaagsan. Sida xadiiska nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahay dhoola caddeyntu waa sadaqo. Haddaba dhoola caddeyntu waa sifaha ugu wanaagsan ee aad qof ku soo jiidan kartid. Sifaha koowaad, ku bilow salaam qiimo leh. Salaamta wax ka wanaagsan ma jiro inaad qof aad la kulantid salaam ku bilowdid. Waa sifaha ugu wanaagsan ee dadka kugu jeclaan karaan. Salaanta badan dadka waxay kugu qaadi karaan qadarin in lagu qadariyo. Haddaba waa sifaha ugu wanaagsan aad qof markaad la kulantid inaad salaantid. Bixi hadiyadaha ugu qaalisan. Hadiyadaha waa dhaqanka ugu fiican ee kala dhexeyn kara laba qof oo isjecel. Sidoo kale waa dhaqan uu naga dardaarmay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inaan isku hadiyeeno waxyaabaha qaaliga ah iyo waxyaabaha aan qaaliga ahayn. Intaasba sidaan isku jeclaano isku hadiyeeya waa isjeclaanaysiine. Haddaba hadiyadaha waa siyaabaha dadka bilaadanka isku soo dhaweyso. Marka isku hadiyeeya. Tan saddexaad, hadalka yarihii aamusnaanta. Waa siyaabaha ay dadka badanaa ay jecel yihiin. Qof qayli badan lama jeclo. Iska ilaali markaad asxaabtaada la joogtid aad la sheekeysanaysid inaad kor u qaylisid. Qaylida badan qof jecel ma jirto. Waxaa la jecel yahay qof degan oo hadalkiisa yar yahay. Taasina Soomaalida way ka mahmaaday oo waxay tiri hadal badan haan ma buuxsho. Hadalkaagu waa inuu yar yahay oo ka muuqdaa deganaansho iyo xasilooni. Taasina waxay fududayn kartaa inuu dadka bilaadanka dhan aad soo jiidatid. Tan afaraad, dhageysiga fiican iyo aadaabtaada wanaagsan. Isku day qofka kula hadlayo inaad warka ka dhaxgelin oo aad dhageysatid si fiican u dhuuxdid. Badanaa dadka ma jeclo qof adigoo hadal wadatid hadalka kaasoo dhaxgalo. Taasina waxay muujin kartaa inuu yahay lagu qaadan karaa qof fudud oo warka dhageysanaynin hadba dhinac la boodayo. Soomaalidana waxay dhahdaa hadal lama wadaagay caano ayaa la wadaagaa. Taas oo ku tusayso in hadalka la kala dhageysto ay fiican tahay eena ka tirsan tahay qayb aadaabta ka tirsan ay tahay. Haddaba yaan laga baran siyaabaha hadalka lala boodayo. Tan shanaad, ha hilmaamin isqurxinta iyo nadaafadda. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee soomoon dhihin Ilaahay wuu qurxoon yahay. Wuxuuna jecel yahay quruxda oo idil. Taasi marka waxay kuu muujinaysaa inaad ishilmaamin nadaafadana aad ku dadaashid. Waa siyaabaha ugu fudud ee qofka bilaadanka qof walba kugu jeclaan karo. Tan lixaad, u sheego qofka aad jeceshahay inaad jacayl u qabtid oo ha ka qarin jacaylkaaga. Haddaad qof jacayl u qabtid waxaa habboon inaad jacaylkaaga wargelisid. Jacaylkaad u qabtid maxaa yeelay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri haddaad qof jeclaatid ugu tag gurigiisa una sheego jacaylkaad u qabtid. Marka Soomaaliduna waxay tiri waxaad qarsatid way ku qarsadaan.
haddii aad qof jecel u qabtid ugu tag gurigiisa una sheego jacaylka aad u qabtid